daawadayaal ninkii Shiina culay wallaahi gabadhii lagu magacaabi jiray Manaal Beeldaaji wallaahi urur ayuu markaasi kaga soo tuuray la sheegay inuu xalaal yahay ilaahay soo barakeeye wararkii ugu dambeeyay iyo sidoo kale xogaha aan idin hayno aan dhalay Shiina culay ayaa waxa la sheegay in gabadhii Manaal oo lagu xaban jiray abta xabiibi in uu banaanka keenay inay gabadhii ur yeelatay taas oo ay markaasi hadda dhashay wararkii ugu dambeeyay sidoo kale xogaha hadda aan helayno waxay markaasi sheegayaan in gabadha lagu magacaabo Manaal ay hadda wiil ku dhashay ariga wadanka Austria gaar ahaan Yurubta dhexe waxaana la sheegay in markaasi Shiina culay ay markaasi u dhashay haddaba xogtan waxaan hadda ka xaqiijisanay page-ka uu leeyahay Shiina culay hadda tusaalahan page-ka hadda uu soo dhigay warka waa kan oo gudaha ayaan ku jirnaa waana mid ka mid ah kuwa markaasi ugu followers-ka badan oo isagu leeyahay sidoo kale waxaa soo dhigay wariyaal badan haddaba haddaad hore u maqli jirtay abta xabiibi walaal xabiibi iyo waxyaabo kale in adeer xabiibi wax kasta waxaa ka dambeyn doontaa in markaasi laysku dhaadhaco oo halkaasi ubad yimaado ilaahay baa mahadaas iska leh ilaahayna ha isu barakeeyo ma odhanayno annagu qoys muslim ah waa markaasi xaaraan maadaama social media dadka caanka ay hoos wax u mehersadaan haddaba Manaal iyo Shiina culay oo la isku xaman jiray ayaa waxa la sheegay in wiil markaasi isaguna YouTube le noqon doona insha Allah 20 sano kadib ama teknolojiyada cusub ee sanadada dambe la jaan qaadi doona maadaama hooyadii iyo aabihiiba ay aan dhaliyihiin waxaana waru taagay ninkii lagu magacaabi jiray Siike oo gabadhan horey u furay suuqana soo galiyay maadaama arintani ay dul hoganayso in Siike muddo hal sano ku dhow uu qabay waxba markaasi xaaba ka soo qaadi way xagga Shiina culay aan dhalay la sheegay in markaasi hadda ay wax u dhashay daawadayaal xogtan war ahaan idin kula ma wadaagayno balse waxaan idin kula wadaagaynaa dhacdo markaasi ay tahay cajiiba oo mudan in la falanqeeyo waxaan u rajaynayaa qoyskan muslimka ah ee Soomaaliyeed gaar ahaan Shiina culay iyo sidoo kale Manaal in ilaahay isu barakeeyo carruurta yar ee dhexdooda timina kuwa ka fara badan oo YouTube layaal ah insha Allah dadka iyo dalkana afayna ilaahay markaasi soo siiyo waa mahadsantiin saaxiibayaal aan dhalay markaasi waa iskala bixiyay ubadkiisina Manaal ayuu ka dhalay waa mahadsantiin fadlan YouTube-keena hogol subscribe noo saar aniguna waxaan ahay Cabdulle Nadaara mahadsanidin